mareegta Somaliland Chronicle ayaa qortay maqaal ay eedagu waaweyn ugu soo jeedisay shakhsiyaad ka tirsan dawladda Somaliland oo madaxweynuhu magacaabay iyo shaqaale dawladeed iyadoo ku eedaysay inay si gaar ah u biliqaystaan lacagaha ka soo xarooda baaritaanka xanuunka COVID-19. maqaalkan oo la baahiyay July 22, 2022 ayaa lagu qoray eedagu waaweyn oo loo soo jeediyay dad xil ka haya dawladda Somaliland oo si gaar ah u samaystay shirkadaha ay kaga faa'iidaystaan baaritaanka koronaha iyo lacagta ka soo xaroota. maqaalka waxaa lagu xusay laba shirkadood oo magacyadooda lagu kala sheegay Biosum Diagnostic Care iyo Modern Medical Laboratory, kuwaasi oo la sheegay in ay kooto ugu xidhan tahay keenidda qalabka koronaha iyo waxyaabaha lagama maarmaanka u ah baaritaanada koronaha. waxaa maqaalka lagu xusay in 4 ka mid ah saamiyada shirkadda Biosum ay yihiin shaqaale dawladeed, kuwaasi oo ka shaqeeya isla xarunta baarista koronaha ee cisbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa. waxaana ka mid ah ku-xigeenka madaxa xarunta baarista Xasan Maxamed Cabdi iyo Maxamed Axmed Xergeeye oo inaadeer lah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Maxamed Cabdi Xergeeye. sidoo kale waxaa maqaalka lagu sheegay in Modern Medical Laboratory uu leeyahay Cabdiraxmaan Xasan Diiriye, waxa uu in badan la taliye ka soo ahaa wasaaradda caafimaadka, sidoo kalena waxa uu xubin ka yahay golaha dhexe ee xisbiga kulmiye. waqti xaadirkanna Cabdiraxmaan Xasan Diiriye waa uu qaabilsanaha Somaliland ee mashruuca DB World. shirkadda Modern Medical Laboratory waxay xarunta baarista koronaha ee cisbitaalka weyn ee Hargeysa ka iibisay qalab lacagtiisu dhan tahay $766,369 Mareykanka ah tan iyo bishii Maarch ee sanadkii 2021. sidoo kale waxaa maqaalka lagu xusay in tan iyo bishii Maarch Biosum xarunta baarista ka heshay lacag dhan $295,822 Mareykanka ah. labadan shirkadood ayaa sanad gudihii wasaaradda caafimaadka ku soo dalacay lacag ka badan $1 milyan Mareykanka ah. hase ahaatee wasaaradda caafimaadku marnaba si rasmi ah uma ay soo saarin xog ku saabsan inta qof ee socotada ah lagana baadho safmarka koronaha, iyadoo qofkiiba laga qaado lacag dhan $45 Mareykanka ah. sida ku xusan miisaaniyadda 2022 ee wasaaradda maaliyaddu soo saartay, wasaaradda maaliyadda ayaa doorastay in ku dhowaad $2.3 milyan Mareykanka ah ay ka soo xaroon doonto xarunta baadhista koronaha ee cisbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa. maqaalka sida lagu xusay dadka agdhow xarunta oo ay soo xigteen ayaa sheegay in kartoonka qalabka ah ee Biosum xarunta kaga iibiso lacag ka badan $1,000, isla kartoonkaasi oo kalena suuqa lagaga helayo wax ka yar $300. sidoo kale waxaa lagu xusay maqaalka in shirkadda Modern Medical Laboratory ay 8 jeer biil isku mid ah soo dalacday oo aan 8daasi jeer marnaba waxba ka bedelin kharashaadkii hore, taas oo tilmaamaysa inaanay jirin xisaab rasmi ah oo ay tii hore uun soo celcelisay. siyaasadda Somaliland ee arrinkan uga yaalla ayaa ah wax kasta oo ka badan 50 milyan oo shilinka Somaliland ah in la hoosgeeyo guddida qandaraasyada qaranka. sida lagu xusay maqaalka, waxay sheegeen in ay la kulmeen qaar ka mid ah saamilayda shirkadaha kor ku xusan, balse ay u muuqdeen kuwa si caadi ah u arka inay labada hawloodba isku wadaan oo aanay wax dana shakhsiyada meesha soo gelayn. Biosum oo inta u badan saamiga ku leh isla goobta baadhitaankana ay ka shaqeeyaan amaba xilal ay ka hayaan ayaa ganacsi caadi ah ka soo qaaday hawsha ay hayaan, sida lagu sheegay maqaalka ay daabacday Somaliland Chronicle. maqaalka waxa kale oo lagu sheegay in sharciyaqaano ay arrinkan kala tashadeen ay caddeeyeen in aanay u bannaaneen sharci ahaan dadka shaqaalaha dawladda ah iyo dadka xilka ka haya dawladdu in ay ka qayb qaataan mashaariicda noocan ah iyadoo laga cabsi qabo dana shakhsiyeed oo la fushado. sidoo kale waxaa maqaalka lagu xusay in Cabdiraxmaan Diiriye oo ah mulkiilaha shirkadda Modern Medical Laboratory uu dafiray in uu wax qalad ah meesha ka jiro, isaga oo ku dooday inuu shirkaddan lahaa ka hor intii aan la magacaabin, balse waxa cad in wada shaqaynta uu la leeyahay dawladdu ay bilaabantay sanadkii u dambeeyey, arrinkaasi oo uu ka gaabsaday inuu wax faalla ah ka bixiyo, sida lagu xusay maqaalka Somaliland Chronicle. sidoo kale waxaa maqaalka lagu sheegay in Maxamed Axmed Xergeeye uu ka warwareegay inuu ka hadlo in ay qoys dhow yihiin agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland, arrinkaasi oo ku tilmaamay mid aan u suubanayn saxaafadda.
si kastaba ha ahaatee xidhiidho badan oo websaytka Somaliland Chronicle uu la sameeyey wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland Xasan Maxamed Cali Gaafadhi si wax looga weydiiyo eedahan iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Maxamed Cabdi Xergeeye ayaa noqday kuwo aan suurtagelin